digital marketing course of Somali. Halkan muuqaalkan waxaan ku duubi doonaa koorso free ah oo dhameystiran oo aan uga hadli doono digital marketing. Waxa laga yaabaa digital marketing inaad maqashay meel badan ka maqashay in badanna ay kugu soo noqotay. Sidoo kale waxa laga yaabaa inay aadan xog badan ka helin ama ay markii koowaad kugu horeysay tahay nooc kasta adigu aad tahay ama shaqadaadu ay tahay ama macluumaadka aad ka ogtahay mawduucan sidoo doona ha ahaado muuqaalkan ama koorsadan free ah wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa la xiriira mawduucan. Waxa jira muuqaalkan ka horeeyay oo sida saas oo kala koorso ah oo free ah oo aan uga soo hadlay sida ganacsi online loo dhiso ama loo sameeyo iyo waxyaabaha hoos yimaada ganacsiga online-ka marka qofku sameynayo sida uu kala baxo. Muuqaalkaas marka iyo kan way iskabayaan oo qofku markuu garanayo inuu ganacsi online sameyn karo wuxuu u baahan yahay digital marketing oo ah sidoo ganacsiga online-ka ah isla online-ka dhexdiisa ugu suuqeyn lahaa. Koorsadan marka waxay buuxinaysaa booskaas bannaan oo ah in wixii online-ka ka jiray ama shaqadii online-ka aad ku haysay aad suuqayso. Shaqada online-ka aad ku haysay marka ha ahaato online kaliya wax ka jira oo virtual ah ama ha ahaato ganacsiga caadiga ah dukaankaaga ama bakhaarkaaga ama sida caadiga offline-ka nolosha caadiga ka jira inaad u soo rartid online-ka. Labadaba ka dinta aan noqotid ama qof caadi oo raba hadda inuu bilaabo ahaw waa isku mid. Marka online business sida loo dhiso muuqaalkaas si fiican u faahfaahiyay kana waxaan ku arki doonaa sida loo suuqeeyo ama digital marketing waxa ay tahay iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaad ku arki doontaa muuqaalkan tools websites iyo waxyaabo badan oo ku caawinaya oo aad wax ka faa'iideyso. Xitaa haddii digital marketing ama wax ka fahansantahay ama aad qof advanced ah tahay oo aysan ahayn markii ugu horeysay waxaad ka faa'iidi doontaa wax aadan horay yani tool aadan horay u ogeyn ama waxyaabo mawduuc aadan horay wax badan u fahansayn. Marka nooc kasta oo tahay muuqaalkan hadii aad daawanaysid soo dhawow baan ku leeyahay. sidoo kale koorsadan waxay noqon doontaa qaabka yani erayada aan isticmaalay waa aan ku soo diyaariyay waa luqadda Ingiriiska laakiin af Soomaali baan ku sharxi doonaa. sababta marka ugu weyn Ingiriiska aan ku soo diyaariyay waxa weeye eray bixin caadi oo la isla yaqaan oo af Soomaali ah oo mawduucan eray kasta aan isticmaali karo maadaama aysan jirin waxa weeye inaan Ingiriis ku soo qaato taa waa qodobka koowaad oo aan u sameeyay. sidoo kale qodobka labaad waxa weeye aan Ingiriis ku soo qaatay oo aan ugu isticmaalay koorsadan inaad idinku sii baari kartaan oo aydan ku heli karin Soomaaliga laga yaabo inay ku heli karin. marka saasaan Ingiriis uga dhigay oo koors Ingiriis ku dhigay laakiin ana si fiican u sharxi doono af Soomaali baan ku sharxiyaa hore u socon koorsadan aan hore u galay. xagan waxaan kugu tusayaa 13 kan mawduuc waa hoos imaanaya koorskan 13 kan mawduuc website and search engines baan ka hadlaynaa. what's digital marketing mawduuca labaad types of digital marketing search engine optimization search engine marketing display advertising native ads social media marketing content marketing email marketing mobile marketing sales funnel iyo marketing analytics. 13 kan marka waxa ay kala yihiin baan mid u kala dhigdhigi doonaa si aad aan digital marketing aadan mar dambe waxa weeye waxa ay tahay aadan soo weydiin ama meesha aad ka bilaabi lahayd ama ka adeegsan lahayd. adiga marka waxyaamahan oo dhan waxa laga yaabaa intooda badan inaad u baahan tahay ama qaybaha ugu muhiimsan aad u baahan tahay. marka kaad u baahan tahay adiga arki doona mawduucaaga waxay ku xiran tahay shaqadaada waxay tahay kadibna aan hore u sii galno mawduuca ugu horeeya. website and search engine baan rabnaa inaan isla aragno. mawduucan marka waxa hoos yimaada saddexdan qodob. waa maxay website baan arkaynaa, waa maxay horta search engine, waa maxay search engine sidee bay u shaqeysaa. aan hore u galno mar waa maxay website. sababta marka website inaad isweydiinna keenaysa waxa weeye digital marketing ama ka hadlayna digital marketing ama sideedaba haddaad online business aad haysatid waxa ugu muhiimsan oo businesskaaga metelaya waa website. marka website-ka haddii aadan soo fahmin
ma sii socon karno digital marketing halka ma sii gudbi karno website marka wuxuu ka kooban yahay aan isla aragno si aan waxaan say u shaqeeyana u sii fahantiin website wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha halkan ku qoran oo ah program files faylal program ah oo la coding gareeyay sida HTML CSS waa luqad programming ah oo qoran oo faylal ku jirta web browser oo ah luqadan qoran wixii soo muujin lahaa oo marka aad ku kicisid yani u bedeli lahayd sidii loogu talagalay loo qoray luqadan u qornayd browserkii soo kicin lahaa marka waa barnaamij waxa weeye telefonka ama device kasta computerkaaga oo ku jira waxa kamid ah marka Google Chrome-ka Mozilla Firefox waxa kamid ah Opera way tira badan yihiin Internet Explorer baa kamid ah web browser-kan marka wuxuu kiciyaa program files ku kiciyaa oo website-ka ah oo qaabka website-ka marka loo soo sameeyo HTML CSS lagu soo dhiso kale ama program kale lagu dhisay okay waxa ku xiga marka domain waxa weeye magaca website-ku leeyahay sida www.amazon.com www.hiran.com www.google.com waxaas dhan waa magac domain ah domain marka waa magaca website-ka lagu soo galo hosting kuna waxa weeye waa server marka waa computer waaweyn noocooda server la yiraahdo oo lagu kaydiyo faylashii website-ku lahaa iyo waliba content-ga aan gadaal ka arki doona kan ah oo website-ka ku dhex jirta sida text-ga image-ka iyo video wuxuu doona ahaado oo website-ka dhexdiisa ku jira iyo programyada ku dhisnaa xogtaas internet-ka marka aad la gashid meesha ay ku oolayso waxa la yiraahdaa hosting online server ah sida Bluehost way badan yihiin marka barnaamijyada bixiyo online server oo way tira badan yihiin marka hosting marka aad soo hesho programkii halka lagu kaydinayo magaciina aad haysatid program fileskiina ku dhisan yihiin browserkiina markii lagu kiciyo browserka website-ka sidaas ku dhameystiran yahay marka afartan adoo saddexdan waxa asaasiya marka program fileska iyo domain-ka iyo hosting-ka website-ka kooban yahay browserka marka dadka u baahan say website-ku arkaan oo adiga iyo qofkii kale oo mataqaana soo galaya website-ka web browser ku soo kacsanaya content-gana waa waxa website-ka dhex yaala marka website-ku simply basic ahaan saas u jajabsan yahay oo macnaha intaanu ka kooban yahay qofku marka program fileska marka hadii aad marka aad program ya aqoon ama aad waxba dhisi karin oo aadan programmer ahayn waxa jira barnaamijyo marka dhisa oo HTML CSS waxaan aad uma baahnid marka sida WordPress oo kala lagu dhisa marka mowduucu gaar ah website si loo sameeyo waxa uga hadli doonaa soo practical laakiin hadda kan waxa weeye website wuxuu yahay in ay la fahanto baan u baahan aan hore u socon waa maxay marka search engine marka waxa weeye تعريف كان عن آخرنا definition كان it's a software program that helps people find the information they are looking for online using keywords or phrases وبروجرام قفك كعاوني إنه حقتي وكرادني إنترنت إنه هلا سوى استعمالية رأيه عمل سنتنسيو سوى استعمالية قفك مركو حرادني جوجل وحبو قرأ كدنا وحي قريب وسهلة مركا وح واستعمالية مركو search engine maxaa kamid ah search engine marka Google-ka kamid ah oo mid ugu weyn ah Google kaliya marka ma jiray intaanu kalena way jiraan kuwa tira badan sida Bing, Yandex, Yahoo, Ask.com iyo kuwa tira badan search engine marka waa noocan waa tusaalayaashana waa kuwan waxa ay qabatana waxa weeye waxa isku xirtaa website-ka aan soo arkaynay xogta la soo galiyay iyo dadka raba inay website-ka booqdaan tii u dhaxaysay website-ka soo heli lahayd weey search engine sidoo marka search engine-ku u shaqeeyaa maxaa u suurtagelinaya inuu shaqada qabto search engine-ku marka saddexdan shaqo uu qabtaa si uu website-yo u soo helo crawling waxa weeye waa shaqo inuu soo helo website-yadii weeytan oo yani xogtii website-ka inuu soo helo markasta oo internet-ka website cusub ku soo biiro crawling baa lagu sameeyaa waa la soo helayaa oo waxa soo helaya search engine-ka waa kuwan marka waxa weeye web crawlers ama spiders waa la yiraahdaa waa program way programkaas oo si joogto ah u scan gareynaya internet-ka soo helaya URL ku marka waa domain name-kii iyo keywords-kii erayada caadiga ah iyo mataqaana lagu raadin jiray marka wax la raadinayo iyo wixii cusub marka la soo geliyo crawling buu sameeyaa marka oo Google marka tusaale ahaan wuxuu soo helayaa website kasta oo internet-ka ku soo biira maalin kasta intaas website baa la sameeyaa
ama website-yada hore u jiray wax cusub markii lagu kordhiyo ama xog cusub la soo galay ama page cusub ay sameeyaan crawling baa lagu sameeyaa sidoo kale crawling waxa hadii uusan website-ka marka cusub yahay waxa laga yaabaa isla markii crawling inaan lagu sameeyn marka waxa jira qaab Google loogu sheego inaad website cusub samaysatay oo Google Console baa la yiraahdaa oo samaysto marka taas waxaan arki doonaa marka aan website-ka samaynayno kale oo aan tusi doono qodobka labaad ee shaqada labaad ee search engine ku qabta waxa weeye indexing marka waxa weeye wixii crawling lagu soo sameeyay baa la shaxaynaya waa la nidaaminaya waa la organize gareynaya waa la isku ilaadinaya si loo kaydiyo marka loo baahdo si loo helo oo meel lagu ogaado waa inta kaliya wax meesha ku qoran oo English the data provided by crawlers is organized and stored in an index so the search engine can quickly locate the information waa inta ranking waa maxay marka waa qodobka saddexaad ama shaqada saddexaad ee search engine ku qabto ranking marka waxa weeye wixii index-ka ku jiray waxa lagu sameynayaa in la kala hormariyo oo markii la soo raadiyo qof soo raadiyo xog la xiriirta website-yadii kii soo hormari lahaa ama ugu saxsan oo wixii la weydiiyay ama la raadinayay kan ku haboon marka search engine algorithms waa program ama barnaamij yani natiijada saxda ah hortabinta leh ama yani ku haboon waxa la weydiiyay natiijadaas sida u soo saari lahaa ama u soo kala hormarin lahaa waxa la yiraahdaa ranking marka ranking waxyaabo badan buu ku doortaa oo aan gadaal ka arki doono buu search engine ku doortaa in website-kaaga ranking koowaad uu soo geliyo marka programka ama shaqadana waxa la yiraahdaa marka ranking waa wax shaqooyinka search engine ku qabto marka saddexdan shaqo ay search engine ku qabata internet-ka dhexdiisa search engine hadaysan jirinna internet-ka ma jireen ba sababtoo ah programka waxyaabaha serveradan ku jira oo yani hosting-ka aan hadda ka soo sheekayno hore oo website kasta halkaas ay xogtiisa ku jirtaa website kasta marka xogtiisa halka maadaama ay ku jirto cidda annagoo aan adduunka meel kale ka joogno oo aan shaqo ku lahayn qofkii website-kaas ka lahaa ama aan la joogin aan xogtiisa helno waxa keenaya waa shaqadan ay qabanayso search engine ay qabanayso qodobka xiga waa maxay marka digital marketing marka aan isweydiino waxay tahay definition kan marka akhriso waxa weeye the promotion of goods services and content to connect with potential customers using the internet and other forms of digital communication yani waxa weeye in la baahiyo badeecadaada ama adeegaaga ama macluumaadkaaga aad rabtay inaad gudbiso si aad ugu xirmato ama aad u hesho dadkii aad ugu tala gashay adigoo isticmaalaya internetka ama hababka kale digitalka marka waxa ka mid noqon kara SMS-ka oo kale yani message-yada telefoonada la isku diro kale internet ma aha laakiin haddana waa digital communication laakiin 99% waxa ay isticmaali doonto digital marketing waa internet-ka marka aan ka sii gudbino taariifkaas yani inta in ka gudbino horta digital marketing si aad scope-keeda ama sawir u heshid waxa weeye waxa meesha ka baxaya qaabkii hore wax loo xaysiin jiray oo yani in board lagu dejiyo meel in yani qaab kale la isticmaalo waxyaabaha ku shaqeeya analog ku shaqeeya digital iyo analog baa kala jira sida raadiyayaashii hore oo kale marka digital marketing waa internetka 99% waxa uu soo raaci kara xoogaa message telefoonada la soo diray wax noocaas ah types of digital marketing hadaba noocyada digital marketing ee ugu caansan ama la sameeyo almost iyagu dhanba waan soo koobay waxa meeshan ka maqan ma jiraan 10kan marka waxyaabo baan ku soo koobay concept-ga noocyada digital marketing erayada moogta iyagoo kala duwan oo tiro badan oo la isku celceliyay baa internetka ka helaysaa kala duwan laakiin anigu muddo maadaama waxaan aan wax badan aan horay aqoon badan ugu lahaa aadna ma taqaanaa aysan ugu cusbayn sanado badan aan ku soo jiray erayadii markaan soo kala shaqeeyay buugaygana waad ku aragtay waan soo kala qoray waliba hadda waxyaabo update oo buuga ay ugu qornayn halkaan ka arki doontaa marka 10kan waxyaabood baan ku soo aroorin karaa anigu digital marketing hadii la yiraahdo qayb search engine optimization search engine marketing ama pay per click display advertising native ads social media marketing content marketing email marketing mobile marketing marketing funnel iyo marketing analytics
haddaba aan galno oo aan mid dul istaagno search engine optimization marka waxa weeye qodobka koowaad ee digital marketing aan ka soo qaadanay oo ah waa habka search engine ama search engine waa naga soo aragnay waa Google oo kale in Google-ka ama search engine kastaba aan page-kiisa koowaad ka soo muuqano يعني markii la weydiiyo ama yani wax website-ka aan ku qornay ama ku saabsan marka qof raadinayo Google-ka inta yimaado ama search engine-ka inta yimaado uu raadiyo in annagii aan page-ka koowaad ka soo hormarno aan ka soo baxano ama qofka koowaad qofka labaad qofka adigu page-ka koowaad baa la yiraahdaa marka waa inta wax meesha ku qoran oo wada akhrisan kartaa marka si product-gaagii ama adeegaagii ama macluumaadkii aad haysay internet-ka ay soo gelisay si ay u helaan ama ay mataqaan uga soo muuqdaan Google-ka ama search engine-ka waxa u baahan tahay marka search engine optimization in ay sameeysid oo aad ka shaqeysid marka types of SEO ama search engine optimization sidee loo sameeyaa saddexdan waxyaabaha baa marka bay u qaybsantaa waaweyn search engine optimization marka waa mowduuc weyn oo kaligeed expert lagu noqdo qof yani search engine expert ana oo shaqada ku qabanayo hadii adigu aadan aqoon u lahayn tools baa xitaa jira la isticmaalo oo ka caawinaya laakiin wax saawsi weyn oo adag ma hadii ma taqaan si fahantada si dhixif saddexdan marka loo kala qaybiyo search engine on page SEO off page SEO technical SEO on page SEO marka waxa weeye wax aad ka qaban karto website-kaaga dhexdiisa oo yani aad iska hagaajinaysid waxa weeye erayadii saxda ah inaad isticmaashay marka waxa qoraysid ciwaanada aadan ma taqaanaa sida saxda ah u kala samaysid heading 1 heading 2 heading 3 baa kala jira nabarre kala leeyahay ciwaanadu inaad kala shaxaysid waxa soo dhan search engine-ku uu ixtiraamaa waxa samaynaysaa image alt text baa jira oo sawirro marka ku dhex isticmaashid qoraalkaaga oo kale ama blogaaga oo kale ama website-kaaga kale wax kasto yani website-kaaga uu samaysan yahay dad image aad ku dhex darasid alt text baa jira wax la yiraahdo qoraal yar oo la raaciyaa jira loogu talagalay si hadhow Google image-ka uu uga soo muuqdo markii la raadiyo waxa jira internal link wax la yiraahdo in linkiyo isla website-kaaga dhexdiisa ah aad isku link garayso wax la xariira yani qoraal aad hadda ka qorqoday oo kale oo website-kaaga ku jiro kale maqaal kale hadda aad qoraysay inaad isla isagii soo qaadaysid marka aad dadka u tilmaamaysid inaad horay waxaan wax uga qoday oo kale ama wax la xariira ama product yani ku jira website-kaaga oo kale kala soo qabo e-commerce website-kaaga wuxuu yahay marka waxyaabahan oo dhan waxay caawiyaan waa on page SEO baa la yiraahdaa haddii si fiican marka aysan kaaga dhismayn waxaan isku dhex yaacsan yihiin ma soo gelisid page-ka koowaad oo ka soo muuqanaysid off page SEO waxa weeye waa wax adiga ka baxsan website-kaaga ka baxsan laakiin inaad ka shaqeysid lafteeda loo baahan yahay yani waxa ka mid ah marka backlinks wax la yiraahdo backlinks marka waxa weeye link in website-kaaga link in macnaha meel kale uu ku link gareysan yahay internet-ka kamid ah oo taasoo ka dhigaysa website-kaaga inuu muhiim yahay oo la hadalayo yani in website kale ama cid kale ay ka soo hadashay adiga oo linkigaaga ay isticmaashay oo ay ku dhex isticmaashay qoraal marka intaas oo inta backlink ay haystid wuxuu kor u qaadayaa sumcadda ama search engine optimization-ka website-kaaga technical SEO isna waxa weeye waxyaabaha technical-ka la xiriira isna inaad iska saxdid u baahan tahay sida speed-ka site speed-ka oo kale xawaaraha uu dadku mataqaanaa website-kaaga markay soo booqdaan uu load ka dhismayo ama uu soo kacayo inuu yahay mobile friendly oo telefoonka marka laga isticmaalayo website-kaaga sidee weeye SSL certificate baa kamid ah oo ah website-kaaga meesha kor laga marka magaca yani website-ka magaciisa ama linkigiisa markii kor dhanka bidix ee kore in mataqaanaa ay ka muuqato qufulkii sheegaya inuu amni yahay website-kaaga marka qufulka haduusan u lahayn SSL certificate marka la yiraahdaa waxay ka dhigan tahay website-kaaga laguma samayn karo la iskuma aamini karo ama xitaa hadduu e-commerce ahaana wax lagama iibsan karo safe ma ahaba marka waxyaabaha oo dhan badanaa waa wax SSL certificate oo kale waa muhiim marka website-ka dhisasid inaad ka soo tagin ba waad ku darsasid baa loo baahan yahay waxyaabaha qabsanayso marka technical SEO baa la yiraahdaa waxyaabahan marka iska saxid marka isku soo xeeray saddexdan waxyaabood marka uu website-ka dhisan yahay mowduuci iyo content iyo wuxuu marka uu qaabilsanaana uu si sax ah yani soo badiyo waa khasab wuxuu ka soo muuqan doonaa page-ka koowaad oo yani
sida loo tartamayo cid kale waxaagoo kala samaynaysa oo internet ku jirta way jirtaa dabcan laakiin waxa uga dheerayn kartaa competitionka aad uga horumari karto waa intaan oo iska horumarisid search engine marka waxyaabaha ugu muhiimsan waa digital marketing had sababta si lacag la'aan ah oo adoon waxba xayisiin bixin baad Google-ka wuxuu ku soo qabanaya qofkii soo baara xog la xiriira website-kaaga ama wax la xiriira website-kaaga aad ka soo hadashay waxyaabahaas kale marka website ku fiican yahay waa qaab free ah oo aan lacagna bixin haddana aad mataqaana ka soo muuqanaysa adiguna waxa u baahan tahay dadka inay ku helaan marka aan uga gudubno qodobka labaad search engine marketing isagu marka waa bilcagsi waa search engine laftirkiisa baa rabtaa inaad ka soo muuqatid laakiin markaan lacag baa bixinaysa intaas uga duwanta waxa la yiraahdaa sidoo kale pay per click baa la yiraahdaa semna waa la yiraahdaa sidoo kale waxa la yiraahdaa pay per click waa qaab marka paid advertising ah oo xayisiin lacag la bixinayo iyadoo la si mataqaana loo kordhiyo muuqashada website-ka uu ka soo muuqanayo search engine results page service search ama service-ka waxa la yiraahdaa page-ka koowaad ee search engine-ka baa la yiraahdaa service marka loo soo gaabayo waa search engine results page internet-kana ku aragtid baa laga yaabaa marka waa qaab aad lacag ku bixinayso si aad uga soo muuqato halkan waxaad ku soo guuldareysatay ama aadan soo samayn SEO-ga marka waxa ku furan marka inaad lacag ta bixiso aad ka soo muuqatid halkan lacag baa marka ugu soconaysa inta aad ka soo muuqato halkan maxaa ka mid ah marka advertising networks baa marka shaqooyinkan aad lacag ku siinaysaa inay ku qabtaan mid ugu caansan marka ugu weyn waa Google AdWords ama Google Ads account aba furanaysaa AdWords ah kadib xagaas aad waxa sii dooranaysaa search engine marketing search engine yani xayisiin aba dooranaysaa xayisiin tira badan bay marka bixisaa kuwa aan gadaal ku arki doono dhan samayn kartaa laakiin hadda waxaan joognaa SEM ama search engine Bing Ads baa jira oo isna laftigiisu waa search engine laakiin sidaas oo kale u samaysanaysaa Facebook Ads oo kale wuxuu sameeyaa search engine platformka saddexdiisa ina Facebook laftigiisa qayb search abu leeyahay qofkii ku qora uu soo helayo marka Amazon Ads oo kale LinkedIn Ads Quora Ads waxaan marka waxay ku samayn karaan xayisiimo tira badan oo kala duwan laakiin search engine-ka way marka search engine-ka ama SEM xayisiinta SEM-ka Google-ka laga sameeyaa iyadana ugu fiican waxaan kala yaacay tusaalayaal baan soo qaatay laakiin Google-ka account AdWords ka furanaysa marka search engine-ka ayada ka soo tusaysa meesha ugu page koowaad inaad ka soo muuqato website-ka uu ka soo muuqdo ama gudubna qodobka xiga display advertising waxa weeye waa qaab yani search engine-ka aad ka soo muuqanayn laakiin aad ka soo muuqanayso xayisiintaadu sawir ama muuqaal ama banner ah boor ah in uu ka soo muuqanayo website-yada dadka kale يعني intaasoo website ba internetka ku jirta adiga marka product-gaaga ama alaabta xogtaada content-gaaga ama service-gaaga ama website-kaaga wuxuu ku saabsan yahay xayisiin aad samaynaysaa oo display ah kadib dadka kale publishers website-kooda ama dadka kale oo internetka ku dhex jira baa la saaraya xayisiinteeda dadka marka waxa lagu dooranayaa dad badan baa soo booqda meelahooda dadka badan oo soo booqda meelahooda baa ka soo raaci doona hadhow marka MB halkan marka maxay uga duwan tahay search engine-ka display advertising search engine-ku wuxuu uga duwan yahay qoladan marka advertising network la yiraahdo oo xayisiimaha sameeya marakan waa middleman weeye oo waxay u idin dhaxeeyaan adiga iyo dadka website-yada iskale marka waxa la yiraahdaa publishers adigana advertisers baad waa adigu hadii aad xayisiin sameynaysid baan ka soo qaadaya marakan sidoo kale publisher baa adigu noqon karaayo waa qaabka Google-ka adigu lacag ku siin doonaa waa AdSense-ga markay fritid oo kale AdSense markay fritid adiga website baa leedahay waxaad ku soo qortaa su'aalahan oo kale website-kaaga marka shuruudo yar buuxinaya AdSense baa loo furayaa lacagta marka adiga lagu siinayo xayisiin baa lagu soo saaranaya xayisiintan website-kaaga la soo saaray ka imaanaysa lacagta marka waxay ka imaanaysaa qof adiga kala ah oo Google lacag ku siiyay inuu website-kaaga xayisiin soo dul saarto YouTube-kana waa la mid waa saas oo kale xayisiinaha YouTube ka soo muuqanaya aniga soo samayn kara Google AdWords-ka inta tago baan ku soo samayn kara kadibna waliba hadaa rabo kanaalka noociisa aan dooran kara xitaa la saarayo xayisiin marka waxay u dhaxaysaa advertising network markan wuxuu u dhaxeeyaa qofkii website-yada lahaa ama meelaha
internetka ku haysta meel xaafadaha ku lahaa guri qofku markuu website leeyahay guri buu leeyahay bay ka dhigan tahay internet marka qof yani meel ka degan internetka baa xaysiintaadii la saaraya si uu dadkaaga soo raacaan maxaa ka mid ah marka advertising networks ka shaqooyinkan qabta Google Ads ka samaysa display advertising ka YouTube Ads ka samaysa Facebook Ads ka Instagram waxaas oo badan iyagoo dhan way sameeyaan marka waxay uga duwan tahay marka ugu weyn waxa weeye waa display waa wax visual ah qoraal iyo waxa ma aha qoraal yani wuu wataa sidoo kale lacagta awal search engine ka tii hore aan soo maray samka lacagta search engine ka kaliya qaadanaysay laakiin markaan search engine ku qoraalaan advertising network ah waxay u dhaxaysaa publisher ka iyo advertisers ka u dhaxaysaa marka Google hadda search engine kina way tahay hadana waa advertising network weeye native ads marka native ads waa nooc kale ama model kale isna xayisiina yani marketing oo digital marketing kamid ah soo marka waxa weeye waa nooc u eg website kale soo saarayo xayisiinteeda waxa ku jira uu yahay yani wuxuu uga duwan yahay display advertising ka display inuu xayisiin yahay waa la garanayaa waxa website ka markay dadku arkaan laakiin native ads ka native wax sababta loo yiri waxa weeye wuxuu u eg yahay wixii meesha ku qornaa oo tusaale ahaan website-yada waaweyn news oo kale baa ama CNN oo kale ama New York Times oo kale qaybtooda midigta ka muuqato oo kale tusaale ahaan recommended articles ka ay yiraahdaan oo xagga oo kala ka muuqato baa laga yaabaa inay ku dhex jirto xaysiimo badan baa ku dhex jira xaysiimahaas marka waa native ads ama maqaalka dhexdiisa ay ku dhex jirtaa baa lagu dhex taraya marka waa qaab yani xaysiintaasina aysan ka muuqan yani aan laga dareemeyn wixii website-ka ku dhex jiray marka waa inta wax meesha ku qoran English is a type of advertising that matches the form function of the platform upon which it appears yani ay ka website-ka ka muuqato aan laga dareemeyn waxa sameeya marka platforms tira badan baa sameeya marka native ads platforms ka waxa kamid ah kuwa hoos ku qoran waad arki doontaa marka mid kasta waad baari kartaa internetka ka raadin kartaa Outbrain, Rev Content, Taboola, Yahoo Gemini, Derifo waxaan oo dhan waa native ads platforms way waa nooc kamid ah marka digital marketing social media marketing kan waxa weeye isna waa nooc kamid ah digital marketing SMM waa nooc marka kamid ah intaan yani definition ka is a form of internet marketing that uses social media platforms as a marketing tool social media marka waxaan u isticmaalayaa markaan si marketing ah waxyaabahan marka way tira badan yihiin ay sameyn karto oo hoos kaliya mawduucan waxa weeye in adiga business baad leedahay ama waxa tahay affiliate marketer baad tahay ama waxa inta tahay internetka online business baad ku haysaa waxa rabtaa marka inaad social media marketing samayso marka koowaad marka waxaad dooranaysaa social media kugu habboon the right social media platform ka isticmaalaysa ama inteen social media isticmaali doonta waxa ku xiran tahay marka businesskaaga noocu yahay ama shaqada rabtid inaad qabato intay tahay ama dadka aad u baahan tahay xagee jooga dadka Facebook jooga iyo dadka TikTok jooga iyo kuwa Snapchat jooga iyo kuwa jooga meesha la yiraahdo Twitter way kala duwan yihiin isku nooc maaha isku qaab yani ma waxa taad go'aamada ma gaaraan marka waxyaabo badan waxa jira la qiimeyn doonjid marka aad dooranaysid platform-ka ama kulligood aad wada joogaad content-ga la wadaagaysaa kala duwanaysaa marka waxaas aad ka fikiraysaa sidoo kale profile-ka aad ku samaysato social media waa in mataqaanaa aad optimize garayso oo si fiican aad soo dhisaan garayso u diyaariso xogtaadana profile-kaaga laga helo wixii oo dhan ay ku qoran tahay waxyaabihii business-kaaga la xiriiray marka qofku saa u soo booqdo waa inuu heli karaa xogtii la xiriiray waa inaad schedule garaysaa oo jadwal u samaysaa xogtii aad soo gelinaysid macluumaadka aad la wadaagayso dadka si joogtaan aad u soo post garaysaa taas waxay keenaysaa marka in dadkii aad haysid oo adigina mataqaanaa dadkii aad la samaysid yani attachment engage dadkii waxay ku sameeyaan marka engagementka marka waa inaad maaraysaa la macaamisha waxaad samaynaysaa waa inaad garanaysaa erayada saxda ah ay tahay marka inaad u isticmaasho waxa aad qorayso markaad post samaynaysid oo kale erayada saxda ah oo ku habboon oo la xiriira mawduucaaga
hashtags يعني تصالحنا كل أما trending أما الحريرة يعني هذا شقة بعض يوحيابها أقبل شيء سي أي organized ونقطان وهاشتاجس أي هالمرسو كوبتو وحي بوستيا دي الحريرة يو السمايسي هنا تكون حرطة ويب سايت كاغا تان أرنتا وأرن مهمة social media بلاتفورم كستو شوكتيد oo isticmaalayso marka aad business tahay online business ay sameynayso waa in website kaaguna iyo ay isku xiran yihiin social media si ma taqaana hal mar qofku uu website kaaga uu heli karo sidoo kalena uu social media kaaga uu heli karo website kan saas oo waa inaad ku soo xirtaa isna social media waxa oo dhan marka waa inay isku wada xiran yihiin oo automated ay yihiin si fiican isugu xiran yihiin hadana waa inaad isticmaashaa marka chatbots marka ay badan tahay marka dadka kugu xiran iyo social media yani si fiican ay ugu dhex jirto adigoo online business waxa sameynaysa marka dad yani program waxa jira marka chatbot la yiraahdo oo ka jawaaba chatting sameeyo oo u jawaaba dadka marka kugu xiran oo macaamiishaada ama audience-gaaga ay kugu xiran marka saxda xilliga saxda ah ay ku soo weydiiyaan jawaabteeda waa inay heli karaan marka chatbots baa la yiraahdaa program u jawaabaya oo qancinaya jira waa inay isticmaashaa marka influencer marketing marka waxa weeye dad waxa jira social media caan ka ah oo saameyn ku leh oo audience badan ay ku xiran yihiin dad badan ku xiran yihiin dadka marka waa inay ayaga isticmaasho weeye oo aad ku siiso yani la heshiiso aad la shaqeyso marka dadkaas oo kale influencer marketing baa la yiraahdaa social media marketing host maada waa inaad iyaga inta la shaqeysid ay audience-gooda u sheegaan macluumaad la xiriira hawshaada iyo businesska iyo waxaaga si aad dad badan oo dadka influencer-radan ka yimid ay xogtaada u helaan marka basically social media marketing waa sidaan istaraatiijiyad bay leedahay marka loo dejiyo oo yani waxyaabo badan ba isweydiinaysaa waa maxay goolka ama hadafka ka leedahay dadka social media marketing marka timaaday dadkan maxaad ka leedahay gool nooceeya ka leedahay marka analytics-kan ku arki doonaayo waa يعني waxyaabo cabir aan rabaayo waxa sababta meeshan u timid baan rabaa inaad ku cabiran tahay sababtoo inaad gaartay in kala waa inaad kala waxaad ku cabirtid oo hore weyn jiraan content marketing iyaduna waa digital marketing ka mid tahay waana qodob muhiim ah waxa weeye strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action. intaan yani waa nooc suuqayna oo si istaraatiijig ah u diyaarsan kaasoo yani lagu focus kareynayo ama loola leeyahay in yani macluumaad qiimo leh oo la xiriira cidda aad macluumaadka u dirist la xiriira inaad yani aad samayso aad la wadaagto si aad u soo jiidasto ama aad u haysato yani audience ku qeexan defined audience oo yani dadkii saxda ah u baahnay marka yani haddii aan si caadi marka u sheegno content marketing waxa weeye adiga business baa leedahay ama online business baa leedahay shaqar online ka haysa waxay doontaa haato shaqo waa inaad marka abuurtaa content-gaas oo aan ahayn yani waxaan iga iibiyo waxaan ka gadayaa wax yani nooca mataqaana copywriting kale oo mataqaana waxyaabaha saleska ama in wax lagu iibiyo loogu talagalay ma aha taa ka hadlamayno waxaan ka hadlaynaa content kale free ah oo dadka ka caawinayo waxyaabaha tusaalahaan kale adeegaaga ama productkaaga waxa uu dadka ka caawin lahaa wax la xiriira oo ka caawinaya waa inaad samaysaa oo aad qortaa ama aad muuqaal ahaan u samaysaa ama aad sawir ahaan u samaysaa content marketing baa leedahay marka tusaalahaan kale website waaweyn ama adeeg bixiya waxa arkaysaa website-kooda waxa ka mid ah blog marka wax kala ma aha ayagu ujeedkooda marka blogging ma aha laakiin waxay rabaan inay content marketing sameeyaan si ay dad waxa ay article-ka blogooda ay ku qoreen dad fahmay oo soo يعني ku qancay oo ay wax ka caawisay oo valuable u arkay baadhow xogtooda waxay si ay u sibaaraan waxay ogaanayaan inay yani dad yani online business haya ay oo ama product haya ama service haya ay yihiin marka waxay u dhowdaan dadkan inay customer noqdaan maadaama ay content ku qanceen soo raaceen
marka content marketing baa la yiraahdaa content baad ku dhinac wadaysa shaqadii aad online ka haysay marka adigu marka content-ga hadda aad samayn karno ama ay kugu adag tahay oo kala dee waxa samaynaysaa qof baa loo shaqaalaysiyaa content marketer ah oo shaqadan content-ga dhan samaynaya oo company-gaaga content u abuuraya tusaalahaan oo kale shirkad isgaarsiin oo kale baa waxa laga yaabaa inay content marketing u baahan tahay oo kale marka waxyaabo la xiriira communication-ka qaabka inta telefoonada sida waxyaabo la xiriira mawduuca iyagu industry-ga ay ku jiraan ay content ka abuurayaan content-gaas oo يعني ستوس عنو أراني يعني وحيين أما كاري وحا يعني سوقين يعني أنا هاي مركا يعني وين إلى فانتين ما في الأيام بوينتيا وحا كلا إذا مركا كونتنت ماركتين قاب لو سمي بلوك بستي وكلا سمي كرتا فيديو باسو سمي كرتا سؤالانو كلا channel بعد فريسايو كلا يوتيوب أديكو هدفكا وسنا هاي يوتيوب وحاس لكن business online business كلا هايستي لكن فيديو يوتيوب كوحة وصوب شيء فيديو يعني content marketing استعمال سوق جلس infographics باكر صوره يعني قرال تربنا وشح صوره يعني قرال كل حجره أو شرحان e-books باكر e-book بعقول كرتها مركب بوق يرى PDF حق بدن وحتى بيحنا سامرك مهم أو ضدك valuable بلاش بتكون بيحنا سامر وحصل مركب content marketing case studies بس كرتها يعني قف يعني استعمالي أديجي أما productي أما waxuuna experience iyo kula wareegaya xogtiisii checklist oo kale checklist marka waa maxay hubin tax baan u bixiyay oo ah stepski markii qofka rabo inuu process sameeyo inuu haysto checklist ama to do list oo 1 2 3 4 5 maxaa tilaabo intee tilaabaan qaadaya marka testimonials and reviews baa jira dad yani waxaan aad iibinaysay iibsaday ama adeeg iibsaday review ay ka bixiyeen oo kale ama testimonials ay sameeyeen oo ah say yani ugu qanceen ama ugu faa'iideen ama waxa ay ka faa'iideen oo kale waxaas oo dhan marka waa content marketing soo galaysa content marketing marka kama maarantid oo waa muhiim hadii business online ay leedahay waa inaad content marketing samaysaa email marketing waa mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan digital marketing is a form of marketing that can make the audience on your email list aware of new products, discounts, content, and other services. Okay, si fudud marka aan sheegno waxay yiraahdaan badanaa money is in the list. Listiga marka ay ka hadlayaan ama laga hadlayo waxa weeye dad waxa arugsanaysaa email-ladooda. Email-ladaas marka waxay kugu jiraan liiska email-lada ah. Email baad u diraysaa marka aad u baahato si joogta baad u diraysaa asbuucii dhowr jeer baad u diraysaa dadkan marka email-ladooda iska soo qaadan maysid halkaan ku arki doonaa nooca email-lada dadka say sameeyaan laakiin email-ku sida sharciga caadiga ah qofku waa inuu isagu iska diiwaangeliyaa email-kiisa waa inuu ku siiyaa qofka markuu email-kiisa asagoo ku siiyo waxaa jira marka program automatic oo email-ka kuu diraya adiga oo tool ba iska diiwaangelinaysaa email marketing tools ah kuwaan mid aad iska diiwaangelinaysaa kadib dadkii baa email-lada ka aruurinaysaa email-lada marka dadka aruursid iyo magacyadoodii hadhow waxaad u diraysaa noocyadan aad u diraysaa email-la marka email marketing email-lada lagu diro marka saddexda nooc bay soo hoos galaan waa promotional emails, information emails iyo newsletters. Promotional emails marka waxa weeye waa email aad wax ku iibinayso ama wax ku promote karaynayso content baad ku promote karaynaysaa waxbaad ku baahinaysaa information emailsna waa macluumaad wax la xiriira baad email ku diraysaa yani si toos wax u promote karaynaysaa laakiin dadkaan aad information siinaysaa si mataqaanaa aad u haysatid dadkaan oo loyal ay u noqdaan oo value aad u siisid iyaguna ay u dareemaan in mataqaanaa aad qof lacag kaliya raadinaya aad ahayn qof iyaga laftirkooda mataqaanaa wax ku celinaya tahay marka informational emails baad diraysaa newslettersna waxa weeye update kala xiriira businesskaaga baad siinaysaa marka saddexdan nooc bay soo hoosgelayaan waxa email marketing lagu diro waa saddexdan ugu weyn types of email marketers marka email marketing dadka sameeya saddexdan nooc bay marka u qaybsamaan bulk mailers, cold mailers iyo email marketers ama legit-ka ku ah oo sida saxda ah u dira bulk mailers marka waxa weeye waa spamming weeye macnaha internetka intay tagaan bay waxay sameynayaan inay email la soo aruursadaan marka tuulal xun ay isticmaalayaan oo email-lada lagu aruursado email la soo aruursanaya hal mar marka wax u dirayaan
qof marka aan emailkaaga marka hore aan opt in ama aan kugu samayn waxa la yiraahdo emailkaaga aan ku siin oo si xorriya ku siin inaad email u dirto waa spamming noqonaysa sharci darro weey sida caadigan waa sharci darro faa'iidana ma laha qofkan maba ku yaqaan wuxuu wax ka iibsada ama wuxuu wada hadal ina dhex maraa cold mailers marka wuxuu uga duwan yahay kan email bay kuu soo dirayaan adiga oo aan emailkaaga siin emailka markay kuu soo diraan marka kugu bilaamayaan marka promotional email kugu bilaamayaan information iyo waxbay ku siinayaan ama mataqaana wax caadi ah oo ku salaamayaan information bay ku siinayaan way isu ka sheegayaan waxba mataqaana ka iibinayaan laakiin kuwan dalka mailers waxay marka hore afka ka gelinayaan promotional emails waana spamming cold mailers marka waxa way ku dajinayaan hawsha laakiin laftirkooda nidaamka saxda ah ma soo marin oo adigu emailkaaga ma wada siinba sida caadigan emailkaaga qof aadan siin oo business qof caadi shakhsi ka halmiyo qof business oo emailkaaga siin oo ujeedku business oo yaani kugu soo diray emailka ay tahay arrin business waa sharci dar email marketing saxda ah marka waa dadka emailkaaga aasisay website-kooda kale inta booqatay baa emailkaaga siisay waa buuxisay magacaaga emailka siisay ama landing page-kooda tagtay ayaa siiyay marka email-ay kuu soo diray emailka marka tool-kana u diray emailka oo u wadaya emailada marka asbuucii dhowr jeer baa la diri karaa oo waliba saas kugu wadayaan emailada marka hadba ina markasta wax cusub ay update bay haystaan product cusub bay rabaan inay ka iibiyaan wax cusub bay rabaan inay adigu marka saas kala rabaan inay sameeyaan marka online business soo gashay waxa doonaan ayaga affiliate marketing hadaa tahay oo hadda cusub oo nin dhalinyaro hadda fi marketing bilaabay hadaa tahay email marketing waa inay isticmaashaa inay sameeyaan hadaa tahay business caadi oo rabaa in mataqaana e-commerce ama dropshipping ama waxyaabihi aan ka soo sheekayno oo macnaha online business loo sameeyo nooc doona ha ahaadee email marketing waa inuu leeyahay way email marketing waxa hadaa xitaa YouTube leedahay caadiya email marketing waa muhiim muuqaal aad hadda soo gelisay baad waxaad ugu diri kartaa konta kuno email listiga kugu jirta hal mar wada diri kartaa marka email marketing muhiimadaas u leeyahay waxa kamid ah marka marketing toolska email marketingka sameeya waxa kamid ah Mailchimp, Sendinblue, Aweber, MailerLite, GetResponse way badan yihiin ayaguna saas kale badan yihiin toolka marka function featureskiisa iyo qaabka u shaqeeya iyo lacagta uu bishii ka rabay waxaasaad kala ogaanaysaa kadib sida loo isticmaalo technical ahaan emailada sida loo dhisaa sida loo diyaariyaa macnaha toolashan sida loo isticmaalo waxaas oo dhan marka waxa weeye course yani muuqaalaan ka soo sameynaya sidoo kale course u gaara email marketing oo kale wax ka sameyn mid kastana saas oo kala rabaa inaan u sii deep dive ku sameeyo ama hoos u sii galo si mataqaana aan uga sii caawiyo ama idinkaga sii caawiyo dadka u baahan mowduuca mobile marketing waa maxay marka mobile marketing waa in dadka mobilada haysta ama internetka mobilada ka soo gelaya in si gaar ah loo wajaho oo si gaar ah suuqeyn loogu sameeyo yani waxa la yiraahdaa mobile marketing marka waxa soo hoosgelaya waxyaabo badan bay soo hoosgelaya waa digital marketing marka strategy oo loogu talagalay ama lagu target garaynayo dadka smartphones ka haysta iyo tabletska ama qalabka kale gacanta yani lamida telefoonada oo gacanta yani handheld device la yiraahdaa gacanta lagu qaadan karo dadka qalabkan marka digitalka oo telefoonada mobile phones la yiraahdo ama smartphones ka haysta qaabkana loo wajahaa mobile marketing marka waxa sameyn ka dhaxaysiin ama suuqeyn app based marketing ah applicationada badan telefoon way waxay lagu la soo dawo marka xaysiinaha telefoon application marka aad gashid aad ku dhex aragto waa mid loogu talagalay Google ko kala lagu soo sameeyaa marka salaana kala xaysiinahan app ka soo dhex booqanaya waa app based marketing marka dadka telefoonada wata kaliya loogu talagalay sidoo kale waxa ka soo muuqan karaan website aad telefoon ka booqatay oo kale marka xaysiinta la sameeyo waxa jirta meel qofku uu ka soo dooran karo inuu dadka telefoonada kaliya device marka kala dooranaya desktop ka reebaya xaysiinta saadho marka dadka telefoonada haysta kaliya ku dhacaysa oo ay gaaraysaa social media marketing optimized for mobile marka sidoo kale xaysiimaha ma aragtay social media lagu dhex sameeyo sida Facebook adska yani Instagram adska nooc doonaha noqdo laakiin social media lagu dhex sameeyo ba optimize waxa laga dhigayaa
halkan istaan waa qalad way optimized for mobile baa laga dhigayaa oo mobilada kaliya hal la gaarsiiyaa la oranayaa oo saas kala desktopka laga reebayaa computerada laga reebayaa marka saas oo kale markay soo sameynayaan waxay sameynayaan in dadka mobilka haysta kaliya ay haysinta gaarto location based marketing baa jira oo ah location baa lagu xirayaa kaliya tusaale oo kale dukaan local ah oo online ka soo dhexgalay oo e-commerce ah baa wuxuu rabaa inuu macaamiisha 10 kilomitir u jirto kale inuu xayisiin ku sameeyo tusaale oo kale marka garow jooga qofkaas oo kale wuxuu sameeyaa marka location based marketing sameeyaa location marka intaas oo kilomitir dadka ama iidow ama nearby uu leeyahay oo halka gaarsiisan xayisiinteeda gaarsiin marka xayisiin location ku xiran weey ama magaalo oo kale gaarsiisan marka telefoonadiiba marka sii dooranaya badanaa marka dadka telefoonada haysta locationkii oo kala u furan saas marka u gaaraysaa haduu sii cayimin hadii kalena isaga cayimayo mobile ba oranaya mobile search ads ayadana waxa weeye kuwan oo kale click to call list directions haysiima yani u si gaar ah marka si sameeysid oo ka dhex sameeysid baasi kala dooran kartaa yani in ay dadku ku soo wici karaan kaliya ay ku soo wici karaan baad lacag ku bixinaysa marka qofku soo wacad yani lacagtii kugu dhacaysa xaysiintu marka hore u diyaarinaysa qaab click to call ah oo xaysiinta marka telefoonka ka soo galo haduu click gareeyo already uu ku soo wicayaaba ka dhiganta ama instant directions marka sax ugu dhufto click gareeyo directionkii Google Map ka soo baxaya uu soo dhaqaaqaya uu soo hagayaaba wartaada ku keenaya qofkii marka mobile search ads baa leedahay waxyaabahan oo waa nooc kamid ah mobile marketing SMS marketing ka kamid ah message ka caadiga ah telefoonka baad lagu dirayaa fariin way jiraan marka tool baa jira la isticmaalo lagu sameyn karo sax push notifications baa jira waa pop up message oo la rabo in engagement lagu marka push notification waxa weeye waa message ama fariin dadku markay booqdaan website-yada booqanayaan website-yada marka telefoonka ka booqdaan marka ama ay application-nada salaano telefoonka ugu jiro kale ay baa wax u soo dirayaan fariin notification ah qofkii marka isagoo smartphone-kiisa ama telefoonkiisa ama application-kii isticmaalayna oo aan ku jirin message notification baa soo dhacaya yani kor soo fuulaya notification marka waa pop up way isagoo hawl kala haysto arkaya kadib uu soo raacaya waxa la dhex keenaya marka fariin cusub oo adigu aad application-kaaga dhexdiisa ka soo dhex samaysay meel la wadaagaysa dadkii marka push notification-ka u gaarsiinaya dadkii oo yani engagement ku risaas koo website-ka kale waa la mid uu leeyahay marka waxa kamid ah marka meelaha lagu sameeyo marka push notification service providers ee jira wax la yiraahdo oo ah push notification kan meelaha lagu soo sameeyo adiga marka aad application leedahay ama website leedahay push notification kan meelaha ka soo samaysanaysa one signal google base push crew airship ma kamid ah marka mobile marketing yani waa qodob muhiim ah oo digital marketing kamid ah indhaha laga qarsan karin maadaama dadka intaasoo bilyan waliba dad aad u badan baa mobilka isticmaalaya internetka uga soo jira marka si gaar ah ahmiyada loo saaraya marketing funnel marka uu ka duwan yahay wixii aan ka soo sheekayno isaga waxa weeye waa dubaalad waa nooc yani waxa dhisaysa dubaalada marka maxay waxa weeye waa talaabooyin kala dambeeya oo qofka macmiilka ah soo hagaya si ay ilaa safarkiisa yani shaqada ku yani adigu customer journey ama uu wax ku iibsanayo waxa weeye waa taxane talaabooyin kala dambeeya talaabooyinka yani qofka uu qaadayo baad hagaysaa marka stageskan saddex baa loo kala qaadayaa marka koowaad horta waa in waxa aad haysid baa la ogaanayaa oo awareness weeye in aad jirtid horta dadkan sidii lagu gaarsiin lahaa ama lagu ogeysiin lahaa weeye baad ka shaqaynaysaa ama haysiin lacagaad bixinaysaa ama Google Ads Facebook Ads ama search engine optimization baa samaynaysaa website-kaaga search engine-ka boga koowaad ka soo muuqanaya awareness markii la helo oo dadku ku bartaan ku soo galaan oo soo booqdaan consideration phase-kaas la galaya marka oo ah dadkii marka inay yani adiguna xog free assisted oo iyagina ma taqaana ay wax ka ogaadaan consideration marka qofka awareness marka soo helaan wali
inay mataqaanaa ku sii ogaadaan oo wax ka sii ogaadaan bay dadku u baahan yihiin adiguna marka waa inaad sii haysid oo aad yacni waxyaabo badan oo mataqaanaa free ah la wadaagtid macluumaad la wadaagtid qofkii aad sii qancisid conversion-kuna waa marka u dambayso ay wixii hadafkaaga aad gaartid oo wixii mataqaanaa dadku ay iibsadaan structure ahaan marka funnelku sidaan u dhisan yahay hoos u dhisan yahay structure of a good funnel sales funnel waa la yiraahdaa qaabkan marka u dhisan yahay marka hore marka waxa ka bilaabaysa marka lead magnet landing page thank you page sales page technical ahaan afartaana buu ka kooban yahay ugu muhiimsan lead magnet marka waxa weeye waxyaabo free ah sida free ebook checklist webinar book macnaha yani ebook PDF oo halka lagu computerka dhexdiisa ama device-da lagu dhex akhrisan karo checklist oo ah talaabooyinka qofku u raaci lahaa si uu shaqo u qabto webinar oo ah yani mataqaanaa muuqaal live ah oo yani dadka mataqaanaa aad wax ugu sharxaysid oo ku fahansiinaysid oo free ah baad lead magnet la yiraahdaa waa magnetkii dadka aad ku soo haagi lahayd leadku marka waa wixii dadka u baahnayd weey lead magnet baa soo diyaarsanaysa marka lead magnet marka soo diyaarsid marka waxa dhisaysaa landing page waa website halboga marka waxa ku dhisay marka landing page builder baa ku dhisaysaa toolal waxa jira lagu dhiso landing page ka ama website-kaaga caadiga ah page waxa ka dhisaysaa landing page ah oo yani aad si fiican u habaysay design garaysay oo lead magnet kan aad leedahay yani mataqaanaa aad ku sharxaysid oo leedahay lead magnetka hadhow dadka kala degaa aad leedahay halkan ama soo raaca si aad u heshaan thank you page marka waa bogga kasii dambeeya kasii hooseeya oo isla sidoo kale waxa lagu samayn karaa landing page builder ka ku sameeyo ama website baa ku dhex samayn kartaa way isku wada xiran yihiin marka waa linkiyo waa isku linki garaysan yihiin marka landing page marka qofku marka landing page ku imaanaya landing page marka soo yimaado marka lead magnetkii qofku helaya ama email-ka loogu diraya ama beesha laftirkeedu kala degaya laakiin landing page marka waxa ku diyaarsan waxa weeye meesha email-ka lagu qori lahaa qofka iyo magaciisii qofka marka email-ka iyo magaciisa baa ka heshay lead magnetka marka sababta qofka u siisay waxa weeye email-ka magacaada way reebaysaa kadib thank you page ka u diraysaa thank you page ka marka u dirto qofkii email-kii waa ka haysataa magaciina waa ka haysataa waxaad ku leedahay marka thank you waana u diraysaa waxa leedahay link magnetkii baad haysataa ama link magnetkii halkan kala degayaaba ama markaas uu halkan la tagay kala degayaa marka kadib baa waxa leedahay ku sii dhufa halkan si mataqaanaa aad yani faahfaahinta ama arrin kale yani aad rabtid inaad ka sii iibsid oo la xariidho wixii mataqaanaa marka hore ujeedka uu ahaa baad u diraysaa sales page ka marka u diraysaa oo meesha u dambeeya sales page ka marka qofku marka yimaado wixii markaas ama iibsanaya ama marka iibsanaya uu iska daynaya intuu arko ka noqonaya qofka hadhow marka waxa ku sameynaysaa follow up email marketing baa isticmaalaysaa mar halkaana marka email maadaama emailada qofka ka reebtay email ahaan baad u diraysaa oo halkaas wuxuu kugu jiraya listigu kugu jiraya dadka marka muhiimadda marka ay leedahay funnelku waxa weeye waa istiraatiijiyad isku xiran oo isku diyaarsan oo qofkii emailladuna aad uga reebisid listiga emailladuna waa ku kordhaya dadkina wax waa ka iibinaysaa marka sales page-ki aad wax ku iibinaysid waa meesha ugu dambaysa marka qofku wax ka iibsanaya dad baa marka soo haraya oo wax ka iibsanaya dadna ma iibsanayaan markaana waxay u baahan yihiin in laga sii hadlo kuwaasna follow up baa ku samayn doontaa sidaana uga iibin doontaa hadhow marka marketing funnel basically waa sidaas annagoo dhisayno marka si caadi u dhisayno structure-kan raacayna baan tusaalayaal ka samayn doonaa muuqaalan ka samayn doonaa meelal badan oo landing page builder badan baa la isticmaalaa sida click funnels iyo get response iyo badan yihiin oo arki doonaa marketing analytics oo ah qodobka ugu dambeeya ee mawduuca digital marketing waxa weeye waxaan maanta dhan aan ka soo hadlaynay haddii aysan analytic lahayn oo aysan taxliil lahayn oo aan wax la iska weydiinin maxaa qabsoomay xagee wax marayaan waxba kama jiraan marka marketing analytics waxa weeye analytic baa u baahan tahay ama taxliilin baa loo baahan yahay in wixii ay noqdaan wax science ah oo natiijada wax la iska weydiinayo marka marketing analytics waa maxay is the study of data to evaluate the performance of a marketing activity marketing analytics waxa weeye marka in datada ama daatada yani xogta aad barato oo aad qiimayso xogtu marka waa maxay waa dadkan audience-ga ama social media-ga qooqanaya
ama email marketing emailadaada aad dirayso furaya kuwa mataqaana website-kaaga soo booqanaya waxaas oo dhan qaabkay samaynayaan yani tilaabooyinka ay qaadayaan waa data way datada marka kulligeed wayna hayso oo aad mataqaana performance-geeda aad qiimayso way taas marka waxa la yiraahdaa analytics sababtu marka waa maxay why analytics sababtu marka waxa weeye in aan abuurno rabnaa data driven marketing strategy suuqayneed oo ay hagayso xogta يعني inaan si indhalaana suuqeyn u sameeyno lama rabo waa in suuqeynta sameynayso ay noqoto mid ay data driven ah oo xogtu ay hagayso sidoo kale waxaan rabnaa inaan isticmaalno key performance indicators waxa la yiraahdo KPI oo ah metrics ama cabir waa inaan isticmaashaa cabiradan marka waa inaad oran kartaa tusaalahan kale waxa sameysay Facebook ads oo kala sameysay xayisiin Facebook xayisiin Google ad aba sameysay xayisiinahan marka aad sameysid marka waa inay ku degsan tahay key performance indicators ama cabiro marka hore hadii aad gaarto ay ka dhigan tahay inaad ku guuleysatay xayisiintaada hadii cabiradaas aad gaarinna xayisiintaada inaad ku khasaartay wixii ku kala sheegi lahaa marka waa key performance indicators way analytic examples marka waxyaabaha marka metrics-ka ee kamid ah kuwaana hoos yimaada hadda ma soo wada koobi karno laakiin hadii aan si kala qaadno web analytics oo kale waa website-ka analytics-ka u gaarka ah Google Analytics marka tool baa waxa ka caawinaya waxa dhan mugtay ganacsiga online-ka wuxuu uga fududeeyaa ganacsiga kale datadan aan muhiimka ah oo dhan kulligeed waa diyaar waa la wada helayaa oo tool baa ka caawinaya hadda marka website-kaaga si aad analytics-ka ula socotid waa inaad website-kaaga ku xirtaa Google Analytics tool-ka liidana ku xirtaa kadib Google Analytics marka ku xirto waxaad ogaanaysaa yaa soo booqday yani bounce rate-ka dadka intay soo galaan iyagoo waxba shaqo qaban xitaa waxba kale kareen haddana website-ka ka noqday kaasoo yani mataqaana metric negative ah traffic source-kaaga xagee dadka soo booqday website-kaaga ka yimaadeen iyo waxyaabo la midka marka analytics-kana rabaa inaad la socotid oo ku cabiran yihiin si ay marka analytics-ka ula socotid si website-kaagu yani mid noqdo performance sameynaya oo muhiim inuu shaqadii sida saxda ah shaqada kugu socoto aad u kala ogaatid marka way jiraan yani tool kale oo la isticmaali karo laakiin Google Analytics ka la isticmaalaa marka free-ga si free ah oo isticmaali karo way jiraan kuwa xitaa paid ah email marketing analytics email marketing hada sameeyay saas kale waxa u baahan analytics baa u baahan cabir baa u baahan open rate emailada intee furtay dad baa email inta u diraysa inta emailada u diraysa dad waxa jira marka aan bab furanba click through rate intee ku dhufatay oo emailka markay furaan hadana linkiga emailka ku dhex tartay intee ku si garaacday si fudhay emailkii waxa laga yaabaa dadku inay emailkii fureen laakiin haddana aysan si kali karaan emailka dhexdiisa wixii aad ku dhex waday conversion rate hadafkaagii aad emailka u diraysay intee xaqiijisay yani hadafkaagu hadduu ahaa inaad wax iibisid intee sale samaysay hadafkaagu hadduu ahaa inay muuqaal daawadaan intee daawatay hadafkaagu wuxuu ahaa ku xirata marka conversion rate social media marketing analytics haddii marka social media marketing asamaysi isaguna analytics buu leeyahay cabir buu leeyahay lagu xisaabtamo reach engagement views waxa soo dhan baa kamid ah reach marka waxa weeye intee uu gaaray engagement waxa weeye intee like comment share waxa weeye yani reactions ka aad ka heshay waa maxay hay intee heshay views intee ka heshay waxa soo dhan marka social media marketing analytics ka soo gelayaan intee negative intee positive dadku sidii saxda ah istiraatiijiyada social media marketing ma aqbashayo macnaha dadku yani sidii saxda ah ma ku shaqeynaysaa waxa soo marka analytics weeye marka digital marketing bila analytics ah waxa ka dhigan tahay wax yani indalaan lagu socdo weeye wax indalaan isaga socdo noqonaysa marka saaxiibayaal qodobkan ugu dambeeyay marketing digital marketing-kii waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iiday intaad muuqaalka daawanaysay koorskanna wuxuu ahaa mid yani bilaasha koorsooyin kala saan oo kala ah oo bilaasha aan soo wadaa waxaan isugu geyn doonaa playlist free course-ka marka muuqaalka yani horta like gare share gare sidoo kale kanaalkana subscribe gare oo nagu soo biir ma santiin